Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. intayna sheekadana bilaabin oo u baahantahay kaba tayo sare leh oo ku raali gelinaya. Haddaba waxaan kuu keenay kaba tayo sare leh oo aad si fiican ugu harkoon kartid. Haddii aad u baahan tahay kabahan, kala soo xiriir nambarka shashada kaaga muuqda. Sidoo kalena yaala kumiti ugu horeeya. Beri baa waxa tuulo yar ku noolaa nin lagu magacaabo Babular iyo xaaskiisa lagu magacaabo Shushma. Haddaba xaaskiisa waxaa ku jirtay ruuxaan horor ah. Habeenada ka mid ah Babular urda ayaa waxaa baxday xaaskiisa. Markay in yar socotay, xaaskiisa waxay isku bedeshay ruuxaan. Kadibna guryihii tuulada ayay waxay bilowday inay mid u eegto. Kadibna waxay si lama filaan u arkaysaa gabar hurda guri ka mid ah guryaha tuulada. Waxayna u imaanaysaa gabadhii, kadibna qoorta ay ku dhagaysaa, waxayna ka goynaysaa madaxa. Kadibna way cunaysaa. Markay cuntana, naagtii ruuxaanta ahayd waxay yeelanaysaa laba madax. Xitaa markay isku bedesho gabadhii caadiga ahayd, labadii madax sidoodii bay uga soo baxeen. Kadibna naagtii ruuxaanta ahayd waxay ku soo laabanaysaa gurigii. Subaxdii markii la gaaray, dadkii tuuladu waxay arkeen meydka gabadhii dhimatay. Kadibna aad ayay uga naxayaan, waxayna oranayaan ruuxaan ayaa tuulada soo gashay ee waa inaan ilaalinaa. Qof walbana gurigiisa habeenkii si adag ha u xirto. Kadibna Babular ayaa u tagay xaaskiisa Shushma, taasoo ku jirta qolkeeda. Wuxuuna ku oranayaa, madaxaaga maxaa ka buuran, maxaad u qarinaysaa? Kadibna waxay ugu jawaabaysaa, madaxa ayaa xanuunaya, maro qoyan ayaa madaxa ii saaran, sidaas ayaana madaxa u qarinayaa. Kadibna Babular xaaskiisa wuxuu u sheegayaa in gabar lagu dilay tuulada, sidaas daraaddeed ay ilaaliso oo ay ka taxadarto nolosheeda. Kadibna wuu isaga tagayaa. Habeenkii markii la gaaray ee uu gobolku dhacay, ninkii Babular ahaana seexday, ayaa Shushma waxay kasoo baxaysaa gurigeedii, waxayna aadaysaa banaanka. Markay guriga in yar kasoo fogaatana, waxay isku bedelaysaa ruuxaan. Kadibna waxay sii wadanaysaa socodkeedii, waxaana ka hor imaanaysa gabar. Kadibna gabadhaas ayay cunaha qabanaysaa, waxayna ka goynaysaa madaxa gabadhana way cunaysaa. Shushmana waxay yeelanaysaa 3 madax, waxayna guriga kusoo laabanaysaa iyadoo leh 3 madax. Subaxii markuu waagu baryay, dadkii tuuladu waxay arkayaan gabar kale oo la dilay. Waxayna isku sheegayaan dhammaantood dadka tuulada inay gabdhaha si gooni ah u ilaaliyaan, sababtoo ah naag ruuxaan ah ayaa soo baxday, waxayna ugaarsanaysaa gabdhaha oo keliya. Gabdhahana waxaa looga digayaa inaysan habeenkii banaanka usoo bixin oo ay guryaha joogaan. Haddaba dhinaca kale, ninkii Babular ahaa wuxuu u tagayaa xaaskiisa Shushma, taasoo ku jirta qolkeedii. Wuxuuna arkayaa madaxeedii oo sii weynaanaya. Wuxuuna oranayaa, maalinba maalinta ka dambeysa madaxaagu wuu sii weynaanayaa, ee maxaa madaxaaga ka qaldan? Waxay oranaysaa, waxba kama qaldana, keliyata madaxa ayaa waxaan iska saaray barkimo. Haddana wuxuu ku oranayaa, maxay tahay sababta aad bustaha isugu qarisay? Shushmana waxay oranaysaa, dhaxan aad u daran ayaan dareemayaa, aadna waa u dhaxmoonayaa, sidaas daraaddeed ayaan bustaha isku saaray. Kadibna wuxuu ku oranayaa, qof labaad ayaa tuulada lagu cunay, ee ilaali. Sidoo kalena aan kuu sheegay, ruuxaanta hadda soo baxday waxay ugaarsanaysaa gabdhaha oo keliya, ee ilaali oo guriga ka bixin. Kadibna wuu isaga tagayaa. Kadibna wuxuu aadayaa dadkii tuulada oo dhan ayaana shiraya. Wuxuuna u sheegayaa mid saaxiibkiis ah inuu ka shakisan yahay xaaskiisa. Wuxuuna ku oranayaa, markasta oo qof tuulada ka mid ah la dilo, xaaskayga madaxeedu wuu sii weynaanayaa. Haddaba ninkii saaxiibkii ahaa ayaa qorshe keenaya. Wuxuuna oranayaa, waxaan madaxa soo saaranayaa boonbala gabar ah. Kadibna waxaan istaagayaa tuulada dhexdeeda si aan u arko ruuxaanta gabdhaha ugaarsanaysa. Kadibna qorshihii ayay isla qaadanayaan. Habeenkii markii qoraxdii dhacday, ninkii Babular saaxiibkiis ahaa wuxuu madaxa soo saaranayaa boonbalihii, wuxuuna dhex istaagayaa tuulada isagoo iska dhigaya gabar. Inta kale jirkiisana wuxuu ku qarinayaa buste. Dhinaca kale, Babular wuxuu iska dhigayaa qof hurda. Kadibna Shushma ayaa kasoo baxaysa guriga, waxayna sii wadanaysaa socodkeedii. Kadibna Babular wuu kasoo dabakacayaa, wuuna dabagelayaa. Shushmana in yar markay guriga kasoo socoto, waxay isku bedelaysaa ruuxaan. Kadibna waxay sii wadanaysaa socodkeedii. Ugu dambeyn waxay soo gaaraysaa ninkii Babular saaxiibkiis ahaa ee naagta iska dhigay. Markay dhinaciisa soo aado oo ay cunaha ku dhagdo, waxay arkaysaa waxa ay cunaha qabatay inuu yahay boonbale. Kadibna waxay ka tuuraysaa bustihii iyo boonbalihii uu sitay, waxayna arkaysaa inuu nin yahay. Kadibna ninkii Babular saaxiibkiis ahaa ayay cunaha ku dhagaysaa, waxayna u qaadaysaa kor iyadoo doonaysa inay madaxa ka goosato. Ayaa waxaa xagga dambe kaga imaanaya ninkii Babular ahaa, wuxuuna qoorta ka goynayaa naagtii ruuxaanta ahayd. Sidaas ayuuna ku dilayaa ruuxaantii, iyadoona waxay isku bedelaysaa Shushmadii caadiga ahayd. Sheekadeena maanta intaas ayay ku dhammaatay. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar channelka, sidoo kalena muuqaalka like saar. Sidoo kalena commentiga kusoo qor magaalada aad naga daawanayso.